Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Isku soo noqod wanaagsan. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadalno vocabulary-gii aan soo bilownay inaan hore usii wado. Vocabulary-ga maanta aan ka hadlayna waxay ku saabsan tahay ama wuxuu ku saabsan yahay family and friends. Waxaa lahaa qoyska iyo saaxiibada. Family and friends. Family waa qoyska, friends-na waa saaxiibada. So maxaan ka dhihi doonaa marka qoyska xubnaa jiro qaybuu kala leeyahay wuuna kala grade sareeya ama wuu kala darajo sareeya. So aan aragna markaa waxaan ku bilaabaynaa kan ugu horey oo ah aunt. Aunt waa eedo. Aunt sida u pronounce gareyn waxa waaye aunt eedo. Aunt or sometimes waxaan dhihi karnaa habaryar aunt. It's aunt. So you was silent. A-N-T ka qabsanaysaa aunt. Aunt ma dhehaysid waa aunt. Boy waa wiil. Wiilka reerka ku jiro ayaa wiil waxaa la yidhahaa boy. Brother waa walaalka. Laba wada dhalatay mid ka mid ah ama adiga wiilka kula dhashay ayaa waxaa la yidhahaa brother. Child midkiin hadduu yahay mid canug dhalay canugu u dhalay iyadana weli la kala saarin wiil iyo gabar aan loo kala saarin ayaa waxaa la dhahaa child. Laakiin markuu wiil yahay wuxuu noqonayaa boy halka gabadha uu ka noqonaya waan arki doonaa. Cousin waxaan dhihi karnaa ilma adeer, ina adeerka ama ina adeerta ama ina eedada. Wiilka adeerka u dhalo ama wiilka eedada ay dhasho ama wiilka abtiga uu dhalo ayaa waxaan dhihi karnaa cousin. Then here we have dad. Dad waa aabo. Dad waa father camal waay. Laakiin markaan dy ku daro oon dhahay daddy still waa aabo. Then we have daughter. Sometimes daughter or daughter dadka qaar waxay u pronounce garanayaan Dora. But aniga Britishka waxaan isticmaalaa daughter waxa waaye gabadha adiga aad dhashay. Gabadha adiga aad dhasho ama hooyo ahaw ama aabba ahaw gabadha aad dhashay waxay noqonaysaa your daughter gabadhaada ama inantaada. Family waa qoys. Father aabe. Friendly saaxiibtinimo. Girl gabar. So waxaan dhahnay child waa canug wuxuu u kala baxaa boy or girl. Canuga wuxuu u kala baxaa wiil ama gabar. Laakiin canug markaa leedahay waxaad leedahay child. Halka markay badiyin aan dhahayna children. Okay? Here we have grand waa grand yani awow camal waaye. Laakiin granddad haddaan dhaha waa awowe. Granddad waa awowe. Grandchild maxaan dhihi karnaa grandchild waxaa waaye ubadka aad awowga u tahay adiga. Wiilkaaga canuga u dhalo ama gabar ha noqdo ama wiil ha noqdo wuxuu noqonayaa grandchild. Granddaughter wiilkaada ama gabadhaada gabadha ay dhasho waxaa la dhahaa granddaughter. Adiga awowa tahay gabadhaada ama wiilkaada gabar u dhalay waxaad leedahay granddaughter. hadduu wiil yahay maxaan dhahayaa grandson waa soo socdaa. Grandfather awowe. Grandma iyo grandmother waa isku mid. Grandma waa la soo gaabi waa ayeeyo. Grandmotherna waa ayeeyo. Grandpa waa awowe ama grandfather waa still awowe waa horaan oga soo hadalay. Grandparents maxaan dhihi karnaa grandparents waa yani for example grandparents waxaan dhihi karaa af Soomaali ahaan haddaan ku raadiyo adiga waalidiintaada waalidkood iskoo la grandparent. Okay? hooyada iyo aabbaha dadki dhaleen ayaa waxaa la yidhahaa grandparents. awowyaasha ama ayeeyaasha marka la isku daro ayaa grandparent la isku dhahaa. Grandson waa gabadhaada ama wiilkaada wiilka uu dhalo halka gabadha ay ka tahay granddaughter halka gabadha ay ka tahay granddaughter wiilka wuxuu ka noqonayaa grandson. Gabadha aad dhasho
ama wiilka aad dhasho canugu u dhalo ayaa waxa la yiraahdaa grandson wiil hadduu yahay granddaughter hadduu gabar yahay granny ayeeyo waa grandmother camal oo la soo gaabay granny group koox waaye group so haddii family aan qeexo waan dhihi karaa a family is a group of people that live together and care for each other يعني familka waa group ama koox dad ah oo isla nool oona isku care gareeyo care yazin isxanaaneeyo ama isdhaqaalaysto so group waa koox guy maxaan dhihi karnaa guy waa nin guy okay husband waa gabadha ninka qaba ayaa waxa la yiraahdaa husband gabadha ninka waxay leedahay my husband asna wuxuu leeyahay my wife aan arki doonaa love ma waa love sometimes noun noqon kara sometimes verb noqon kara ereyga n noun u taagan v verb u taagan my love haddaan dhawac noqon kartaa noun I love my wife haddaan dhahana ficilay noqon kartaa oo verb ay soo geli kartaa waa jacayl married guursaday la qabo ama nin wax qabo ama naag la qabo ayaa waxa la yiraahdaa married guursaday ama guursatay gabadha waa la qabaa she is married ninka gabar buu qabaa he is married so guursaday ama guursatay waa married qof xarig ku xiran yahay ama reer leh miss ereygan waa erey la isticmaali jiray 17th century oo inta badan waxaa loo isticmaali jiray unmarried women or female child gabadha aana la guursan ayaa waxaa la dhihi jiray miss mother hooyo mister maxaan dhihi karaa waa mudane mrs marwo so mrs tan waa marwo gabar la qabo oo marwo ah ama haddii laga dhintay xitaa mrs jane ama mrs xafsan dhihi karaa waa widow waxa weeye hooyada laga dhintay yani ilmaha ogoonta haysta mrs waa la dhihi karaa lama qabo laakiin weli waa mrs ilan guuraa ku dhacay miss kaligeed markay noqoto maxay noqon kartaa gabadhan waa either married or not ama hal gursa ama san la gursan miss waa ugu yeeri kartaa mom or mommy mom markay tahay hooyo mommy wayda haddaan ku daro mommy still bracketka haddaan ka bixiyo emtaan soo celiyo mommy hooyo neighbor ereyga neighbor GH-da waa silent neighbor waa daris ama jar parent waa waalid friend saaxiib pen friend so ereygan pen friend I think inuu aad u cusub yahay inta badan aadan maqlin pen friend waxaa la dhahaa waxaan dhihi karaa aan ku qeexi karaa friends who exchange letters but they never met dad saaxiibo ah warqado isu qoro dhambaalo isu qoro message isu diro laakiin weligoodana aan kulmin qalinkaasay ku saaxiib yihiin weligood ismay arkin ya they are called pen friend sister brother maxaan dhahay walaalka sister walaasha son halka aan iri daughter waa gabadhaada son waa wiilkaada ereygan laba jeer aan ku celi sorry hal habaan ka qaadanaynaa so daughter hadday tahay gabadhaada son waa wiilkaaga my son your son his son ma waa son odan ee loo akhrinayaa surname inta badan markaad baasaboorka buuxsanayso ama dokumentiga yani legalka ah waxaad ku arkaysaa in lagu yidhaahaa write your surname waxaa la yidhaahaa magaca qoyskaad ka bilaabaysaa tusaale haddii adiga cali maxamed lagu dhahaa maxamed cali aad ka bilaabaysaa aabbaadu faarax awoogaadu faaraxa inaad soo hormariso oo aabbaad ku xigta adiga u dambaysaa laga yaabaa soo magaca qoyska inta badan lasoo hormarinaya then teenager waxaa la yidhahaa qofka baaluqa ama qaangaarka ah oo da'da 14 sano 15 sano 18 sano markuuba gaaro waa teenager okay hooyo aabana weli muusan noqon laakiin waa teenage dhalinyaro qaangaar baaluq waxaad dhihi karto uncle yudan ee loo akhrinayaa uncle waa adeer abti midkay noqoto uncle wife waa xaaska
halka husband uu ahaa ninka wife maxay noqonaysaa xaaska wixii tali tusaale ah od qabto fadlan nagula wadaag dhanka commentiga ama whatsappkayga cidi hayso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاي لابن نسي شير قريسو عشركة سي وقارو أصحاب تادا دانينيسا إنينا لبرتان لغة إنجليشكا مهتسند